waxaan ka hadlayay dhowr waxyaalood oo dambi layga dhigay waxaa jirtay markii al-shabaab wax ka sheego subax walba maxkamadda la saari jiray wallahi waxaa jirtay sheekh shariif inuu soo habaaray waxaan idhi markuu isoo habaaray isla markii waan jawaabaan u sameeyey waxaan idhi aniga waa habaartay inta caddu u duceeyey sawir yaraan iga sheekeynaa soomaali qarankeedii oo gaari saaran habeen madooba wuxuu ku dhacay dhooqo markaasaa maalin walba sanad walba waxaa la raadiyaa makaanig oo baabuurkaa ka saara meesha makaanigii la keeno luguu la baxaa u dhuntaa marka mid walbo la keeno ama motoorka bar kala baxaa u socdaa qaar rugay la baxeen qaar boolashay la baxeen marka noogu dambeysay ama makaanig fiican loo helay marka iyaga waxay moodayeen makaanig aan macnaha kuwii kore ayaa loo soo dooray markii la arkay ninkaan makaanig khatar yahay oo baabuurka hagaajiyey oo nolol ku shiray oo martiisna uu arkaayo wixii wax yaala ayaa waxa la ninkaan baabuurka u dhaqaajin wax laga kaxeeyay marka waddankeena maaragtay sidaasaa loogu talagalay inuu dhooqada ku jiro qarabkiina bushuu ka saaran yahay gaariga shacabkiina way saaran yihiin qofkii loo keenana wax barbuu la baxaa markuu macnaha baabuurkii gobol baa la xadaa maalin walba ninkii noo wanaajiye oo nalalka noo shiray gaariga dhaqaajin lahaa motoorka kiciyey waxaa la ninkan waa nin xunba waa meesha laga qaado baabuurka ku dhaqaajin rabaa liya marka waa saaxiibkay farmaajo ani iyo isaga yaraanteeni waxbaan sawiri jirnay marka waxaa isku guruub aan ahayn labadayna waa kala dhunnay dagaaladii wixii ka dambeeyey waxaan arkay farmaajo ra'iisul wasaaraha farmaajo oo walaaltinimo iyo wax ku soo wada kornay ayuu markuu soo koray ku bilaabay aniga waxyaalo badan waxaa jiray qofka siyaasiga ah wax walba laguma eedeyn karo waxaa dhici karta shaqada inay ka badato macnaha waddankaasna waa waddan oo faraha ka baxay ani marka waxaan ka wadi xusuusin waxaa jirtay nin u soo dagaalamay oo dawladda ka mid ahaa oo meelo qaarkood lagu xiray oo Itoobiya ka haysatay ayaa xasuusinaya dhowr jeer arrintiis waxaa laga qabto dawladda ka mid yihiin hadday ka hadlaan horaa laga soo daynaa ninka